السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دواد برنامج كنا العربية في دقيقة. أنا أبرة مصطفى عراقي. وإن شاء الله تعالى مقال كنا ما أنت قادم ضنا فرق يود حياة لبض إري الإحساس والشعور. لبض سيدا وسونتي معناه دوا درينك. بس مرة ما سوي ديسة وما حي فرق يود حياة إحساس وشعور. أنا كل شيء دون إن شاء الله تعالى. الإحساس يخص المؤثرات الخارجية، أما الشعور فيخص بالمؤثرات الداخلية أو المعنوية. الإحساس وحو خصية وحي للدريم كريد دبدا لقى الدريم أما الشركة الدريميو شركة وحيابه كل دريمو أيا الله يراهدا إحساس. وتصار واحد أرنيسا أنا أحس بالحرارة وحن دريميا قبو وحن دريميا كليل وكلك gacanta ayaad ka dareemaysaa shirkaaga ayaad ka dareemaysaa balse الشعور هو ما يخص المؤثرات المعنوية waxyaabaha khuseeya dareenka gudaha ee nafta ama qalbigaaga uu dareemayo waxa uu tusaalahaan waxaad oranaysaa ana ashcuru بالخوف waxaan dareemayaa cabsi waxa laga dareemaa qalbiga laga dareemaa oo marka soo koobo wixii la taaban karayo dareenka la taabto waa إحساس wixii qalbiga taabtana ama qalbigu dareemana waa شعور. laba jumladood ayaa laga rabaa in af Carabi ka dhigta. kow waxaad tiraahdaa anigu waxaan dareemayaa qabow iyo waxaad tiraahdaa anigu waxaan dareemayaa farxad. waxaana soo raacaysa insha Allah comment-ka ka hooseeya muuqaalkeena. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.